الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدنيال لما صحافة شرفت بدن كان هور جوجته يوسير هذا جودي كوفيد 19 وكذا كوبان مركو رئيس الأنت الإسلام والسلام عليكم بأنكم سلام يا مركو حيجوا عن ما أنت كل سو جوج سنة إن المجتمع السومالان أما شعب السومالان inaan ka saarno wararka malaa'awaalka ah ama ku tirkuteenta ah ama dadka laga leexinayo dadaalka aynu ugu jirno la dagaalanka xanuunkan COVID-19 oo ah inaynu gacmaha isku qabsano dhamaanteen. haddaba xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo maan ku haysa kana taxadiraysa halista iyo saameynta uu leeyahay xanuunka COVID-19 kuna yeelan kara qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay horaantii 2020 bilowday qorshayaal qaran oo ay ugu diyaar garoobayso kagana hortagaysa xanuunkan COVID-19. dadaalka xukuumaddu horseed ka tahay ee lagu badbaadinayo ummadda ka sokow waxa yeena laga maarmaan ah doorka bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland kaga aadan u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunkan COVID-19 ama coronavirus oo ah mid dunida oo dhan khatar ku ah. waxay xukuumaddu qoondaysay iyadoo la dareensan yahay in xanuunkaasi keenaya saameyn dhaqaale iyo mid maartay caafimaad iyo mid walba. xukuumaddu waxay qoondaysay lacag 4 milyan iyo badh dollara oo inta dhowr jeer hore waa sheegnay oo loo kala qaybsay 4 qaybood. qaybta koowaad tahay 1 milyan iyo badh hawl socodsiinta ama la dagaalanka ama agabka soo iibinta wixii caafimaadka quseeya iyo 1 milyan oo dollar oo ku aadan in lagu taakuleeyo danyarta Soomaaliland ee gaar ahaan magaalooyinka degan ee uu saameeyay xanuunkani shaqooyinkoodii iyadoo ganacsataduna ay inta qaybtooda ay ku dari doonaan insha Allah ay ku dari doonaan. 1 milyan waxa loogu talagalay oo sanduuq loogu shubay in dadka uu saameeyo ganacsatada yaryar small scale businesska yaryar saameynta xanuunkan ay ganacsigooda ka baabiisay in lagu soo kor loogu soo qaado lagu taakuleeyo iyadoo sanduuqaasi uu furan yahay ganacsatada Soomaaliland hay'adaha caalamiga inay cid walba ku soo darto si markaa looga taakuleeyo dadkaas ganacsatada ee uu saameeyay dhaqaalahoodii saameeyay xanuunkaas. 1 milyan wuxuu ahaa in loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo beeraleydii wax soo saartay sanadkii kale hore runtii dalaggu aad u soo baxay si ay sanadkan u dhiiradaan oo dalag kale badan u beeraan inay xukuumaddu ka iibsato isla markaana raashinkaas noqdo waxna kayd noqdo qaran waxna uu noqdo in dib loogu taakuleeyo danyarta aan sheegay xanuunku saameeyay dib loogu taakuleeyo. 4 sanduuq iyo qaranku u sameeyay 4 milyan barka ugu sameeyay ugu talagalay. haddana guddiga wixii soo gaadhay haddaan idin faahfaahino oo dadku isku khaldaan agabka iyo lacagta isku khaldaan. guddiga waxa ka soo gaadhay agab intiisii badnayd ay iman doonto beriya sahan dambe ay annaga gacanta soo gali doonto. mulkiilaha shirkadda Weed Rimad Ismaaciil waxaa naga soo gaadhay agab kooban oo afsaabka iyo waxyaabaha la mid ah oo aan oran karo waa wax hordhaca oo 10% oo markaa gaadiid u helay laakiinse hadda dekada berbera majority-giisa soo wada gaadhintiisa hadhay beriya saadii 2 cisho soo socotana lagu wareejin doono. agabkaas oo 1 milyan ka badan lagu qiyaasay inuu ku bixiyo walaalkeena muwaadinkii kaasoo agabka lagaga hortagayo ama lagu maareynayo xanuunka COVID-19. shirkadda labaad oo shirkadda Telesom waxa naga soo gaadhay iyadana 840,000 oo kala 640,000 oo agaba oo isna agabka xanuunka COVID-19 lagula dagaalamayo oo kala duwan oo isaga qudhiisu aan ka guddoonay laakiinse dhexda ku soo jira oo dhawaan iman doona isaguna iyo $200,000 oo jeeg cash ay ku keeneen
oo sanduuqa qoyskaab aan u bixinay oo ka danyarta lagu kaabayo lagu darayo. shirkadda saddexaad waa Dahabshiil Group, iyadana wax naga soo gaadhay $200,000 oo kaasha iyo $600,000 oo agaba oo aan ka guddoonay laakiinse dhexda ku soo jira alaabtoodu oo iyaguna agab aad u qiimo badan oo agabkaasna agabka laga howlgalayo xanuunka ka hortagiisa oo runtii alaab badan oo qiimo badan ay ku jirto. ganacsada Cabdiraxmaan Boore waxa naga soo gaadhay isagana $100,000 oo kaasha iyo $70,000 oo raashinnimo uu ku bixiyey. hay'adaha iyo shirkadaha iyo ururada deeqda qalabka keenay qalabkii oo sidoodii keenay waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo agab aynu ka helnay, waxaa ka mid ah dowladda Imaaraadka, waxaa ka mid ah dowladda Shiinaha, waxaa ka mid ah dowladda Turkiga, waxaa ka mid ah dowladda Qatar. intaas waa dowladaha aynu saaxiibada nahay. hay'adaha kala duwan UN-ta iyo International Agency-ka oo hogaaminaysana iyagana xoogaa agab kala duwan baa laga helay, sida mashiinka lagu baadho xanuunka lagu baadho iyo khubaradiisa iyo wixii soo raaca. shirkadaha wax naga soo gaadheen shirkadda Fly Dubai iyo shirkadda Alibaba ee ninka taajirka ah iyo ururada wadani oo runtii iyagu intii taalkooda waxay ku caawin kareen wasaaradda caafimaadka ku caawiyey. lacagaha oo markaa aan sheegay oo shaxaysan waxay noqonayaan sidaa halkaan ku hayo oo runtii laynoo soo diri doono PDF laynagu soo diri doono. wax walba waxaa la yidhi xalaal iftiin baa la qashaa. wixii lacag guddi ahaan nagu soo galay waxa weeyaan 4 milyan iyo bar dowladda ah iyo 500,000 oo ganacsatada annaga nagu wareejiyey, iyadoon ku heshiinay ganacsatada iyo culimada qaaraanka ururinaysa ee shacabka Soomaaliland ka ururinaysa aan ku heshiinay wixii xagga ganacsatada laga qabto inay account-kooda ku shubaan oo inay account-kayga aan soo gelin. marka inta annagu aan qabanay marka laga reebo $100,000 Cabdiraxmaan Boore oo aan annagu agabaan laga maarmi karin oo silindiriska oxygen-ta iyo waxyaabaha inkaas aan u diranayno maahina $400,000 ee laba shirkadood bixiyeen account-ka waxay ku dhacday guddiga reer Somaliland u xil saaran magacaabay anigu ee ganacsatada culimada leh account-kooda ku dhacday si intay urushaan iyo intaasiba ay qaybtooda qoyskaab ay u soo diyaariyaan. marka intaas waxay isku tahay marka waa 4 milyan bar iyo barkaa 5 milyan baa kaasha. agabkii wuxuu isku noqday milyan iyo 310,000 wixii agab hal loogu wareejiyay 2,310,000. isugeynta hantidaasi waa 7,310,000. marka waxaan halkan runtii aad iyo aad uga mahadnaqaynaa annagoo ku hadlayna magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ka xukuumadda iyo ka shacabka Somaliland. waxaan si mug leh uga mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay juhdina gelisay dadaalada loogu jiro ka hortagga iyo maareynta xanuunkan COVID-19. guddiga heer qaran ee COVID-19 waxay si gaara ugu mahadnaqayaan mulkiilayaasha shirkadda World Remit Ismaaciil Ibrahim Axmed, shirkadda Telesom Mudane Cabdikariim Maxamed Iid, shirkadda Dahabshiil Group Maxamed Saciid Ducaale iyo ganacsada Cabdiraxmaan Boore oo si gaar ugu sii mahadnaqayno oo kuwa gacmaha ugu weyn soo fidiya ah isla markaana aan ka rajaynayno inay intaa yan ka badanba sii wadaan haddii alla kama dhigay haddii xanuunku inagu sii socdo. guddiga ganacsatada runtii aan u xil saarnay iyo culimmadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagoo habeen dharaar heegan hawsha u ah. waxaan bilaabi doonaa insha Allah wiigan dhexdiisa in dadkii qoyskaab sanduuq qoyskaab lacagtii aan ururinay tii dowladda iyo tii shacabkaba iyadoo la isu geeyey inaan ka bilaabino degmooyinka iyo magaalooyinka loogu talagalay raashinkaasi in qaybintiisa la bilaabaya insha Allah.